بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو يوتيوب كعان تكنولوجي وعد كلنا نقص عن كرتان برتان كلنا فيسبوك شافي أحمد علي بحيث سؤال راح نقدر كتان عالم info@gmail.com والكاس سؤال راح نلقى سوي ديور بعلم بوحدة يعني قصص سمينا waxaan soo wada barnaamijkeeni access loo yaqaanay database ka lagu sameyn jiray waxaynu soo mareynay casharadiisii weyn soo mareynay maanta waxaan ka doonaa cashar runtii aad iyo aad u muhiim ah oo ah ka warramaya qaabka Excel laba barnaamijkeenu xiriir ka dhaxaysiin doona hadda la dhigo barnaamijyada Office-ka waxa ugu caansan oo kamid ah barnaamijka loo yaqaan Excel iyo barnaamijkan hadda ku isticmaalno loo yaqaan Access laba barnaamij ugu isticmaalka badan la hadaba waxay doonaa xogta Excel taala inaynu ka soo qaadno dabeedna aynu keeno access aynu keeno marka halka waxa la isweydiin karaa dhowr qodob waa maxay ujeedada laga soo qaadayo xogta Excel dabeedna access loo keenayo ujeedku waxa weeyaan imika kala dad arday diiwaan gelisid imtixaan oo kale imika haday arday galeen halkan oo kale imika waxa yaala book baa yaala Excel ka loo yaqaan book baa loo yaqaan book imika waxa ku qoran xashada badan baa ku yaala laakiin imika kale waxa ku qoran marka imika waxaad aragtaa halkan waxay diyaarsan Word Excel ka ardaygaasi ma gelin access ma gelin 180 buu haystaa totalkiisa averagekiisa resultkiisa waad aragtaa hadaba xogtan iminka marka barnaamijka la joogo access database marka la joogo access waxa ma xisaabiyo tan imika kala access ki aynu isticmaalnaa soo kicino MS access tan soo kiciyo waan click siiyo dabeedna ilaha okay ayda caalin schools kaasina isticmaali jirnay caalin school maadaan tago aan ka fiiga aan tagaba barnaamijkan waxa ma xisaabiyo imka wax ku qoran equal 2 times 2 halku 4 soo saar waxma soo saari macni barnaamijkan isagu xun buu kaydiya macni xun buu kaydiya hadaba Excel wax ku soo xisaabso hadhow tulan soo qaad marka Excel ku soo xisaabso dabeedna soo qaad dabeedna access keen casharku waa sida bal imika keenaya imika Excel kan waa kan iga furan Excel kan xaashada badan buu leeyahay waxa la yaqaan starting calculation ka la yaqaan result examination loan payment cashier conditional hadda kaasana uu keenayo la yaqaan result examination ka laftigiisa doonaya soo qaado waan iska soo xidhaya marka waan iska soo xidhaya waan save gareeyo soo xidhaya hadaba aan halkan joogan doonayaan soo qaado waxaan taginaa Excel data waxaan leenahay Excel waxaan leenahay halka waxa laga soo qaaday waxaan leenahay browse waxaan leenahay desktop waxaan ka sii dooranayaa file-ka aan soo qaadayo waa kan dabeedna waxaan leenahay open dabeedna waxaan leenahay okay saa markuu ugu soo baxo waxaan ka dooranayaa halka ay ku taalo cashier ka result examination ka dooranaya naqasti baan leeyahay halka inay sax saarnaa aad muhiim u leedahay waa ruuga u sareeyo waa aqoonso xogtan ciwaankeedii waxa leenahay naqasti ka dhaaf halka ay naga dhaaf halkan wixii loo yaqaanay waxa sheegaysaa shay loo yaqaan primary key oo casharada hore aad u soo sharaxay ka primary key saddex xushan buu ku siinayaa let access add primary key choose my own primary key iyo no primary key waxa weeye in anagu primary key-ga isagoo access isagu bixiyo halka hada column book soo dartay loo yaqaan ID qaysaqa bixinaya way anaga column ka soo darsanay laakiin hadda ana bixinaya ID-gi meesha laga saaray kiibad ku xiraysa aan waxa leeyahay ku xiraysa ugu munaasabsan NO ayaan ku xirayaa naqasti baan leeyahay maadaama in form of table loo kaydinayo xogta waxa loo kaydinayaa table ahaan waxa leeyahay maxaad u bixinaysaa magaca baan ugu daabaan leeyahay okay baan leeyahay halka waxaan leenahay save import service save kale waxa leenahay ugu dambeyn save hadda aniga wuxuu haystaa magacaasan hore ugu import geliyo hore oo isticmaalay magac ka duwan 0 ma taan ku daray bas waxa leenahay save import halka imika waxaad aragtaa halka inooga eega result examination baad aragtaa waa tan xogti laakiin halka maxaad aragtaa cilada culus iyo arka halka waxaad ku aragtaa cilada barta ku aragtaan hash wax cilada ma jirto laakiin dad aragto waxyaabo noocaas ah way meesha ku yar barnaamijyo badan baa sameeya calaamada noocaas ah hashtag soo saar marka waxaan sameeynaa meesha ma kordhinaynaa aad xogti way muuqanaysaa marka casharkaas oo kamid ah casharada ugu muhiimsan barnaamijkeeni Excel-ka ayaan maanta idin la wadaagay waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh